السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكا فكرين درarkeeda ee wax ku ogow damaca maansoonida dhulka Soomaalida. Waxaan safar gaaban ku imid magaalada London anigoo u socda ka qaybgal xaflad aroos ehelkayaga ah. 3 casho markaan joogay ayuu ila soo hadlay nin ka tirsan ururka ka mid ah kuwa sida qarsoon u shaqeeya. Waxa uu igu ballamiyay maqaaxi ku taala South Kensington oo la yiraahdo Gleesil Bakery. waanu imi anoo warwar yar igu jiro oo isweydiinaya waxa uu iga rabo. Markaan cabaar fadhiyay ee aan bun iyo macmacaan meesha ka cunay ee aan kolba saacada hoos ka eegayo, waxa uu si kadis ah ii soo dul istaagay nin cad. Wuxuu ii sheegay in la ii soo diray oo uu i qaadayo hoteelka. Waan soo raacay gaadhiga. waxa uu i keenay hoteelka Riverbank Park Palace oo ku yaala bartamaha London. qof baa ii sii taagnaa albaabka oo si diiran iigu soo dhaweeyay hoteelka. waxa uu ii kaxeeyay qolka albaabkiisu ku qoran tahay tirada 322. qolka markii aan galay ayaa sariirta ku dul arkay suud madow, shaar madow iyo kaba madow. waanan maydhay sidii lay tilmaamay ayaan dharkii madoobaa ku labistay. cabaar ayaan daawaday London Eye oo toos ugu beegnayd daaqada qolka aan ku jiro. waxaa meel ka mid ah meelaha ugu bilicsan ee magaalada London. dalxiisayaal badan ay joogaan. gobolku wuu sii dhacayaa. ana wali waxaan taaganahay daaqada. garaac xoogan ayaan albaabka laygu soo tumay. haddana waa la iska furay. anoo yaaban ayaan idhi, mudane, waxaa bilaabmaysa soo dhaweyntaadii. waan soo raacay. waxaana uu i fadhiisiiyey miis maro madow lagu sharaxay, shaqaaluhuna ay ku wada labisan yihiin dhar madow. miiska waxaa saaran khamri cas, warqad sida 3 xagal u taala oo ay ku qoran tahay Welcome to Brotherhood. iyo sidoo kale waxaa taala hees magaceedu yahay Welcome Home. markii baa gabadh dhar madow xidhan ay masraxa soo fuushay. waxaabay qaadaysaa heesta midhaheedu ay miiska saaran yihiin. heeskaas oo ii baalqaaday misana cabsi igu abuuray ayaan mid madow u yimi. isagoo madaxa hoos u foorarinaya ayuu ii yidhi, mudane, waan kuu diyaariyey gaadhi ku qaadi lahaa dabaqa hoose. hoteelka ayaa la ii geeyey. waxa igu sugayay gaadhi kale jiid ah. markaan gudaha u galay waxaan kula kulmay saaxiibkay. waan ka naxay. waxaan idhi, war maxay sidani tahay? isna waxa uu iigu halceliyey, waa adigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ee aan codsigaaga 2 jeer diidnay. Global of Room iyo Stosh Temple. hadda waxaa timi fursadaadii si aad isku muujin karto. haddii aad daacad ka noqoto howlaha lagu idmanayo waxaad heli xornimo buuxda. magaalada waan ka sii baxayaa. waxaan gaaray dhismo dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad iiga yaabiyey qaabka loo dhisay. saaxiibkay gaadhigiisa ayaan ku hadhay. anna 2 nin oo xidhan dharka madow ayaa qoortooda suran tahay 3 geesood oo cas. intay garbaha ay qabteen ayay ii kaxeeyeen qol madow oo iftiin qura ka baxayo. iftiinkaasina uu yahay shamac. waxaa goobta madow soo fadhiya nin darajadiisu tahay 33 oo magaciisa iigu sheegay Powell MC Milano. waxa uu ii weydiiyey in aan ku qanacsanahay inaan ka soo biiro ururkooda Drag Morow. anna hore ayaan ka aqbalay. habeenkii halkaas ayaa xaflad weyn laygu sameeyey. 3 habeen kadib anigoo sidii meeshii ugu jira ayuu Powell ii kaxeeyey qol madow. deetna ilays ayaa laygu qabtay gidaarka. waxaana la ii tusay khariirad madow oo ay ku cad yihiin 2 meelood
waxa uu i weydiiyey Baawal, labada meelood ee cad miyaad garan? Waxaan ku idhi waa geeska Afrika, tan kalena waa bariga dhexe. Baawal ayaa ku yidhi waa dhulka Soomaalida, tan kalena waa Shaam. waxa uu ii raaciyey in khariirada la sameeyey shirkii Berlin ka dhacay sanadii 1884. waxa kale oo ii sheegay arrinkan argagaxa igu reebay Baawal MC Milano. waxa uu yidhi shirkaas waxaa fadhiyey kii samada ka soo dhacay. markuu arkay inaanan fahmin ayuu igu macneeyey, idinku shaydaan ayaad u taqaanaan. wuxuu noo sheegay in dhulka Soomaalida iyo Shaamba ay yihiin labada nuur ee u baahan in lala dagaalamo si qorshahayagu u fulo. la soco qaybta labaad.